Taliska howlgalka ku meel gaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS ayaa si adag u cambaareeyay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday xerada Xalane ee magaalada Muqdisho. Weerarkan lagu qaaday xerada Xalane oo saldhig u ah ciidanka nabadgelyada Midowga Afrika, safaaradaha reer galbeedka iyo hay'adaha qaramada midoobay ayaa sida la tilmaamay geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Xogo ay heshay idaacadda Shabeelle ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobay ay ku dhinteen duqeyntan, inkastoo hay'adaha ay saameynta ku yeelatay ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintan. Qoraal ka soo baxay madaxa ATMIS Maxamed Al Amiin ayaa lagu sheegay in weerarada noocan uusan marnaba ka weecin doonin howlgalladooda ku aadan sidii nabad loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya. Danjire Maxamed ayaa xusay inay xoojin doonaan la dagaalanka waxa uu ugu yeeray argagixisada Soomaaliya, isagoona carabka ku adkeeyay inay ka go'an tahay garab istaagga dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ciribtirka kooxda Al-Shabaab. Danjiraha ayaa tacsi u diray ehelada iyo asxaabta dadkii ku waayay weerarkan duqeynta ahaa dadkooda, isagoona caafimaad u rajeeyay kuwa dhaawaca uu ka soo gaaray. Wuxuu ugu dambeyn sheegay in halka uu dhibka ka dhacay ay gaareen khuburo, isla markaana ay qiimeyn ku sameyn doonaan baaxadda uu leeyahay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda duqeyntan, iyagoo ku tilmaamay in tiro hoobiyaal ay ku hoobteen gudaha xerada Xalane, inkastoo aysan wax faahfaahin oo intaas dheer aysan ka bixin. Maaha markii ugu horeysay oo weerar loo adeegsaday madaafiic lagu qaaday xerada Xalane, iyadoo ay xusid mudan tahay in 3 bilood ee lasoo dhaafay dhowr jeer sidan oo kale duqeyn lagu ekeeyay xeradan oo ku taala aagga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. halkaan idinkala soo hadlayo waa dhulka serviceka ee jaamacadda ummadda oo ku taala degmada Hodan ee gobolka Banaadir. halkan waxaa isku hor fadhiya ama meel aan sidaas iga dheereen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa booliiska iyo ciidamo ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose. Sida la sheegay, ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe halkan burburin ka waday, waxaana ciidamada ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose ay gabi ahaanba ka soo horjeedaan tilaabada dowladda ay ku burburinayso xaafadahan oo la sheegay inay degan yihiin dad rayid ah oo hayb ahaan ka soo jeeda ciidamada gobolka Shabeellaha Hoose ka yimid. labada ciidan way soo fadhiyaan, markastana dagaal ayaa qarxi karo. inagu waxaan idinkala soo hadlaynaa guri dhexdiisa oo nooma suura galin inaan banaanka u baxno, maadaama dhufayso goobaha ay labada ciidan ka qoteen. sidoo kale waxaa la saaran yahay dabaqyada kala duwan ee xaafadahan. sidaad arkaysaan waxaa burburin lagu sameeyey xaafadihii kala duwanaa ee goobtan ku yaalay. sidoo kale waxaa jira dad badan oo alaabtoodii ay banaanka u taalo, isla markaana guryahoodii laga jijibiyey, haddana aysan meel ay hooy ka dhigtaan. xaaladdu way adag tahay daawadayaal, oo waxaa markasta la filan karaa in dagaal uu ka qarxo. waxaa dhammaaday waqtigii dowladda ay u qabatay dadkan oo shalay ku ekaa. shalay halkan dagaal la isku basbeeray ayaa ka dhacay oo labada dhinac u dhexeeyay, khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay. dagaalkaasi ayaa ka bilowday kadib markii la sheegay in goobta lagu dilay ninkii waday caafcaaftii guryahan duduminaysay. taasi wixii ka dambeeyayna dagaal qaraar ayaa goobta ka dhacay oo khasaara dad gaaraya 5 qof ay ku dhinteen, sida ay dadka halkan jooga ay noo sheegeen. xaaladdu ma sahlana, markasta dagaal ayaa la filan karaa oo labada dhinac, waxaana la sheegay in saraakiisha goobta ku sugan ay doonayaan in xaaladdu ay dejiyaan, balse aysan dadka deegaanka waxay sheegayaan inaysan guryahooda ka bixi doonin qaarkood oo guryahooda la damiyo. gurigan aan ku jiro waxa uu ka mid yahay guryaha hadda loo soo socday in la burburiyo oo la doonayo in cagafta la soo geliyo. cagaftu wax burburinaysa dhabarkeena dambe ayay hadda soo maraysaa sida wararku ay sheegayaan, oo anaga nooma suura galin in banaanka u baxan xaalado amni oo jiro awgeed, maadaama la sheegay in ciidamadu is ag fadhiyaan mar kastana uu dagaal dhici karo. waxaana la sheegay in haddii cagaftan ay sii wada burburinta in ay dagaal ka qarxi karo. Shabeelle ayaa ku sugan goobta ay wax ka dhacayaan. waxaa gabi ahaanba dadka goobtan ku sugan ay ka gaabsadeen in warbaahinta ay la hadlaan, maadaama ay sheegeen in la beegsanayo haddii ay warbaahinta la hadlaan oo dil loogu hanjabay. ana soo maray Shabeelle TV, halka burburinta ay ka socoto degmada Hodan, Muqdisho.
waan gartay meesha meel idinka barakiciyey anaga barakiciyey waan gartay bal xaaladda iga waran waa sidee xaaladdu xaaladdu waa caadi haye dowladda la keenay marka alaabtiinni miyaad rarateen mise weli waad ku sugantihiin meesha alaabtu weli waa mar rarayna alaabtu waa raray haddaan rarayna alaabtu waan gartay ma ciidan ma idin yimid baa mar kale jira ciidan idin yimid miyaa jira ciidan idin yimid mar kale ha weli ciidankii dowladda waa idinku hareeraysan yihiin maxay idin leeyihiin ciidanku maxay idin leeyihiin ciidanku maxay idin leeyihiin marka adiga ka nuur ahaan alaabtaadii iyo reerkaagii miyaad raratay mise weli meeshaad joogtaa oo xataa wax kharasha ma haysatid dowladdu wax kharasha idinkuma kaabin miyaa haye wax dagaala iyo saansaan colaadeeda miyaa jirta ciidanku maxay idin leeyihiin ma meesha ka baxay idin leeyihiin mise maalma idin kaadinayaan dhulka nuurow dhulka ma dowladda sax u leh mise waa wax ganacsato la siinayo ka nuur ahaan imse sana dhulkaa degan tahay imse sano 13 sano micnaha caruur baad ku dhashay caruurtaadii baa waaweyn ah hadda waan gartay marka waan gartay wax ganacsataa oo dhulka la siinay miyaa jirta oo aad maqasheen marka adigu miyaad ku taageersan tahay dowladda in dhulka gadato waan gartay marka laakiin dad kale jira oo leh dhulaan meelaan degna ma haysana ka waran waayahay wax ciidanka hadda booliiska ee idin dul jooga ma wax khasabaa jira khasab uga gura ma idin leeyihiin wax dhibo kuma qabtaan wax saansaan colaadeeda iyo dagaala miyaa jira waayahay dowladda maxaad ugu baaqaysaa waayahay laakiin sababtu maxay tahay sababta ii sheeg laakiin dadku meelay degaan ma haystaan dadku saasay leeyihin meelaan degna ma haysano waa qaar laga yaaba inay gobollada ka yimaadeen oo dhulka dowladda ay degan yihiin saasaad aaminsan tahay adigu واي هذا هاي وان قرتي ادو وانا دولك هذا ka guurtid diyaar ba u tahay xilligan ma soo dhawaade meeshan fiiradi ya awr aadi iska dhigda madaxweynaha maxaa asiga ma soconaysa taas handa gaf lagu la dhagax jaf amisam jaf ciidan jaf eechada war umada soo talaab bari ma soo gashano baan bareeg intee isku arkayna marka ani ma ku arkooybe madaxweynuhu aan is aragno madaxweynuhu shacabka ku arkaan madaxweynuhu shacabka maalin wal hatta isbuuci noo qodbay anaga in dukaamadii kaamarooyinka lagu xiray dadka lagu dhex dilaayo ayadoo xamar la joogo marka doorashada arrinka weyn waa dadka la soo bixiyo kaararka la qaybiyo hawshaas marka hawl dhow ma aha wadamada nabadda ah sida Mareykanka iyo wadamada waaweyn ayaa qalqal galaba waa u baahanahay madaxweyne ku dhiirado qof iyo cod wadanka in laga qabto haddii oo afartan degmo oo hodan iyo waabari iyo xamarweyne doorasho laga qabanayo oo qof iyo cod laga dhigayo taas aan waxba kama dhigi karo laakiin iima muuqato marna in doorasho qof iyo cod oo laga qabto wadankan dhawaan waxa warmartiyeed laga soo saaray shirkii madasha wadatashiga qaran kaasoo magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay qodobo badan oo muhiim ah ayaa ka soo baxay waxa kamid ah in dalku uu jeesan doono qof iyo cod ah durbadiiba waxa aad ugu yimid Jubbaland iyo Puntland oo dibajoog ka ah shirkaanba sidoo kale midowga musharaxiinta oo aad kala duwan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay waxayna sheegeen in xilligan wadanka aysan ka soo gali karin doorasho qof iyo cod ah balse madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo marar badan khudbado ka jeediyay meel badan waxa ay ku adkaysteen in dalkan qof iyo cod uu aadi doono aan mar dambe tanada afisyooni loo noqon doonin qaar kamid ah
shacabka muqdisho ayaan maanta wax ka weydiinay siday u arkaan in waddanka xilligan uu jeesto qof iyo cod ah ma suurtagali kartaa ama suurtagal ma tahay in waddanka xilligan qof iyo cod uu aado waa kay shacabka muqdisho oo fikradooda ka dhiibanaya waddanka inuu aadi karo qof iyo cod ilama ahan qof iyo cod xilligan ilama dhowo weliba laba dowlad saddex dowlad kadib waa suurtagal maxaa yeelay waxaa ka horeeya waddanka ammaankiisa in gacanta lagu dhigo ayaa ka horeeyo marka ammaankiina weli sidii la rabo uma sugno marka dadka maba soo bixi karaanba sababtoo xamar hadda waxaa ka jira oo aan qarsanayn in dukaamadii kaamarooyinka lagu xiray dadka lagu dhex dilaayo iyadoo xamar la joogo marka doorashada arrinka weyn waa dadka in la soo bixiyo kaararka la qaybiyo hawshaas marka hawl dhow ma aha wadamada nabadda ah sida Mareykanka iyo wadamada waaweyn ayaa qalqal galaba afrikaanka wadamada afrikaanka qof iyo cod waa yar yahaba wali anaga ma gaarin xataa carabta oo dad amniga haysto ayaan qof iyo cod wali gaarin marka arrintaas waxaan qabaa inay adag tahay hadda marka anagu waxaan u baahannahay dawlad xitaa aan federaal ahayn oo dawlad boqortooyo ah military xoog leh oo waddanka qabsato waxa kale waa ruwaayad farmaajo iyo xasan iyo wixii ka horeeyay wixii ka dambeeyaba arrintaas waxay ku xiran tahay waddanka amnigiisa inuu sugmo amni haddii aan la helin wax suurtagalaya ma leh wadamada amniga leh oo iskuruudka leh ayaa mararka qaarkood waxaa ka dhacdo qalqal oo xagga in xataa dawladda ku dhacdo ah marka qof iyo cod wax sahlan ma aha aragtideeda xura u ahay waxaan aaminsanahay waddanka qof iyo cod inuu aadi karo waxaana ku salaynaa waxa waaye haddii la dhaho madaxweyne walboo la soo doorto anoonan dhehaynin madaxweynahana asaana anoonan dhehaynin madaxweyne walboo la soo doorto haddii laga hor imaado oo aanan tilaab la qaadin waxa waaye mar walbo meeshay taagnaanay hadda madaxweyne xasan sheekh haddii laga hor imaado oona qof iyo cod uusan qabanin waxaa imaanayso kan ku xigana sidii oo kale haddana in looga hor imaado marka waa u baahannahay madaxweyne ku dhiirado qof iyo cod waddanka in laga qabto waxaa looga qaban karaa qof iyo cod intii dawladda ay gacanta ku hayso in waddanka qof iyo cod laga qabto waay marka laga qabto waxaan waa tilaab weysada waxay isaga qaban laadahay farmaajo in qof iyo cod looga hor imaado cid kastoo siyaasad u arkaysay oo ka hor imaaday way ku qaldaneen xasan sheekhna hadda in laga hor imaado waa lagu qaldan yahay marka qalad leh haddaan ku saxeyno sheekada waa iska sii socone laakiin isbeddel haddii loo baahan yahay waxaa waaye madaxweyne xasan sheekh anigu waa ku taageersanahay waxaana ugu taageersanahay wax kale ma ahan waa in oo tilaabada asaga qaado kan ka dambeeyana meesha uu asaga geeyo meel ka sii fiican uu geynaa waddankana dee waa barwaaqoowa maya kama dhici karto mana ka dhicayso waayo waxayse ugu dhacaynin Soomaaliya dawladda meesha ay hadda ka taliso horta waa bari iyo hodan iyo xamareed ma dhaafsana Soomaaliyana ka gees gobolka Boqol intana bacalay jir baar dheer ilaa iyo Dhobley intana Boosaaso ma la raba in doorasho qof fiican laga qabto mas waxa la rabaa afartan degmo oo dawladda ay ku hareeraysan tahay haddii oo afartan degmo oo hodan iyo waa bari iyo xamareed doorasho laga qabanayo oo qof fiican laga dhigayo taas aan waxba kama dhigi karo laakiin ima muuqato marna in doorasho qof fiican oo laga qabto waddankan horta hal la gaar hal shaqeeyo ana waxaan islaam taqaanaa dawladda ha shaqeyso oo xoogga ha saarto qof iyo cod si ay macnaha marta waddankan ay ugu qabato awood bay u baahan tahay aqli u baahan tahay maskax u baahan tahay dawladda way fadhisaa fadhiga ka kacdo qof iyo cod xilligan xilli la qaban kara ma ahan haddii la rabo Soomaalida in la isku keeno oo macnaha marta dadkan la badbaadiyo shacabka war qofku ku codeynaya war garsbaale tan haddaad miis geysad war miis iska dhaaf alaan ku mari karin cid waxa sheegaysaa ya qof iyo cadaalada ana miis ay wada macnaha marta xagga saduuqii kaande lugan ku mari karin waxa sheegaysaa maxay tahay xageen kaaga codeeya ya aniga muwaadin aan ahay 32 sano jira maxaa la rabo cidkii xagee waay cidkii muxuu baahan yahay in wax lagu doorsado qof qaar inuu wax ku doorto ceerish biyaha deganaay laba iman kara dawladda iman kartaa lama dhigi kara miiskii marka waddanka dadka lama weelinin dadkan ayaan dulmi loo macnaha marta been looga sheekaynin ana waxaan ilahay dawladda fadhiga ka kacday dhulka horta ha shaqeyso dawladda fadhiga ha ka istaagto oo macnaha marta in macnaha marta meelaha ay ka sheekayso macnaha marta meel inta ciidan la keensado oo lagu sheekay lama rabo waxaas
waxaa loo baahan yahay waddanka in xoog la saaro oo la shaqeeyo oo qof iyo codna loo diyaar garoowo war dadkii aabal isku keenin maaho ya waxay u baahan tahay madaxweynaha wuxuu uga faa'iidaysan karaa inta u dhiman hal sano boojo waaba ku darsana waaba ognahay 2 iyo 3 hal ku dar 3 maaho saddexdaas waxaa looga baahan inuu shacabka soo jiidasho ku sameeyo ma ahan kuwa muqdisho kaliya min ras casar ilaa ras kambooni laga rabaa inuu soo jiidasho ku sameeyo ya oo dadka micnaha u diro shacabka waa shacabka ma ahan ani baarlamaan la hadal ma dhahay hogaamiye la hadal ma dhahay waxaan dhahay shacabka war dadka adiga madaxweyne u tahay shacab waay 270 kaas madaxweyne uma tiid adi ya annaga noo tahay madaxweyne annaga nala hadal dadka shacabka waa inuu la hadlaa dawladda ay la hadashaa ka bacdi waa laga yaabaa wax yar xoogaa waa la wada gaaraa ma ku dhahay laakiin wuu gaarsiin karaa wax mustaqbalka dambe xilligan ma u soo dhawaaday meeshan fiir adi ya awra aadi iska dhigda madaxweynaha maxaa asiga ma soconaysa taas laakiin waxaa laga rabaa miduu ku samayn karaa inuu dadka soo jiidasho ku sameeyo fiiri haanbaa gaf lagu laa dhagax jaf amisam jaf ciidan jaf ejaada war ummadda soo talaa bariima soo gashano baan bareeg intee isku arkayna marka ani ya ma ku arkooybe madaxweynuhu aan is aragno madaxweynuhu shacabka ku arkaan madaxweynuhu shacabka maalin wal hatta isbuuci noo qodbay anaga yaa u qodbayna maalin wal siyaasiyiin ma loo qodbaya shacabka ku baahan waa anaga shacabka ku baahan siyaasiyiin mu baanid ma baantay ya anaga noo qodbay haddaanan noo imaanaynin wax dhacay ma balebo xamar hadda waxa ka jira oo aan qarsanayn in dukaamadii kaamarooyinka lagu xiray dadka lagu dhex dilaayo ayadoo xamar la joogo marka doorashada arrinka weyn waa dadka in la soo bixiyo kaararka la qaybiyo hawshaas marka hawl dhow ma aha wadamada nabadda ah sida Mareykanka iyo wadamada waaweyn ayaa qalqal galaba ilama ahan qof iyo cod xilligan ilama dhawo waliba laba dawlad saddex dawlad kadib waa suurtagal anagu waxaan u baahannahay dawlad xitaa aan federaal ahayn oo dawlad boqortooyo ah military xoog leh oo waddanka qabsato waxa kale waa ruwaayad bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ma bacd runtii waa su'aal muhiim ah oo dadku aad dhagta ugu hayaan marka aniga ra'yigayga ilama ahan qof iyo cod xilligan ilama dhawo waliba laba dawlad saddex dawlad kadib waa suurtagal maxaa yeelay waxaa ka horeeya waddanka ammaankiisa in gacanta lagu dhigo ayaa ka horeeyo marka ammaankiina weli sidii la rabo uma sugno marka dadka maba soo bixi karaanba sababtoo xamar hadda waxaa ka jira oo aan qarsanayn in dukaamadii kaamarooyinka lagu xiray dadka lagu dhex dilaayo ayadoo xamar la joogo marka doorashada arrinka weyn waa dadka in la soo bixiyo kaararka la qaybiyo hawshaas marka hawl dhow ma aha wadamada nabadda ah sida Mareykanka iyo wadamada waaweyn ayaa qalqal galaba afrikaanka wadamada afrikaanka qof iyo cod waa yar yahaba weli anaga ma gaarin xataa carabta oo amnigaysato ayaa qof iyo cod weli gaarin marka arrintaas waxaan qabaa inay adag tahay hadda marka anagu waxaan u baahannahay dawlad xitaa aan federaal ahayn oo dawlad boqortooyo ah military xoog leh oo waddanka qabsato waxa kale waa ruwaayad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweynaha wuxuu sheegay ku adkaysta mar walba in dalka doorasho qof ay ka dhacayso ku muuqataa xilligan shalay farmaajo markuu madaxweyne ahaa dadka aad ugu yimid iyo madaxweynaha ma ku muuqataa maya farmaajo iyo xasan iyo wixii ka horeeyay wixii ka dambeeyaba arrintaas waxay ku xiran tahay waddanka amnigiisa inuu sugmo amni haddii aan la helin wax suurtagalaya ma leh wadamada amniga leh oo security leh ayaa mararka qaarkood waxa ka dhaco qalqal oo xagga in xataa dawladda ku dhacdo ah marka qof iyo cod wax saalan ma aha anu waxay la tahay nidaamkeennii aan ku sii soconno inta waxay ka hagaagayaan ama waddanka uu qofka qabsanayo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qorshahayaga waxaa ku jira inaannu dalagyada qaar si gaara culays u saarno si aanu u kordhinno wax soo saarka baahida cuntada galleyda iyo hadhuurhka iyo digirta iyo masagada bariiska suuqa in galley ka buuxsato suuqa in bariis ka buuxsamo suuqa inuu ka buuxsamo hadhuudh suuqa inuu ka buuxsamo digir ay ka buuxsanto dhinaca kale inuu moos ka buuxsamo oo aan dhoofinno sisin ay ka buuxsanto aan dhoofinno iyo liindhanaan sida haddaba socota inaan dhoofinno kuwaasaa culays gaara aan saari doonaa insha allahu tacaala wiigga soo socda dareenka ra'iisul wasaaraha dareenka golaha wasiirada anoo ku hadlaya beeralayda soomaalida waxaa loo fasixi doonaa fertilizerka ayaa loo fasixi doonaa insha allahu tacaala bariis beeraley dawlad kale ahi soo saartay inay gataan dalagga dalka inay ciidamada u gadaan galleyda kuwan hadda sheegay iyo hadhuurka iyo bariiska jawhar ya ay u gadaan bismillaahi raxmaani raxiim maanta sidaa aad arkaysaan halkan wasaaradda beeraha
iyo waraabka dhexdeeda waxaa noogu baarkin garaysan oo aanu runtii halkan maanta bulshada Soomaaliyeed iyo beeraleyda Soomaaliyeed iskaashatooyinka Soomaaliyeed la wadaagaynaa 20 cagaf oo aad u qiimo badan oo aanu ku dib ugu soo noolaynayno adeegyadii dawladda Soomaaliyeed ay siin jirtay beeraleyda Soomaaliyeed aanu dib ugu soo noolaynayno waa tiradii ugu badnayd ee sidii burburku u dhacay hal mar wada yimaada oo wasaaradda beeruhu ay ka shaqaynayso inay taageerto iskaashatooyinka iyo beeraleyda Soomaaliyeed sharaf bay noo tahay wasaaradahan hambalyo ayaanu leenahay agaasimayaasha iyo agaasimaha guud iyo wasaaradda iyo dhammaan intii ka soo shaqaysay Allah khayr ha siiyo intiina caawisay runtii cagafyadan waxaa nagu caawiyey World Bank bangiga adduunka ayaa nagu caawiyey marka waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay annaguna si daacadnimo leh inaanu halkan maanta cagafyada u keenay cagafyadan waxaanu doonaynaa inaan ku bilowno hay'addii caanka ahayd ee beeraleyda Soomaaliyeed taageeri jirtay ee onot la dhihi jiray ayaanu doonaynaa inaan ku bilowno ee burburtay oo aad ogeydeen siday u caawin jirtay beeraleyda Soomaaliyeed waxay lahaan jirtay cagafyo ka badan 1500 oo cagaf oo meel walba gobolada dalka yaala oo beeraleyda Soomaaliyeed u shaqaysa oo shidaal ay ku shubto ama dawladdu ugu shubto oo nin kasta uu booking garaysan karo oo dalban karo raqiisna loogu shaqaynayo ama si free loogu shaqaynayo hadba siday u kala liitaan wasaaradda beeruhu waxay u taagan tahay inay dib u soo noolayso wax soo saarkii dalka iyo food iyo martay cuntadii isku filnaashihii cuntada ee dalka oo sidaan sheegay maanta dadka Soomaaliyeed nasiib darro ay quudanayaan dalagyo laga keenay dalal kale oo aan qiimo lahayn oo aan caafimaad lahayn waxaanu doonaynaa waxa dalkooda ay ka helayaan ay ku beeranayaan inaan xoojino sidaas baanu cagafyadan u keenay waxaanu leenahay hambalyo maaragtay ganacsatada iyo beeraleyda iyo dadka dhammaan inta beeraha ka shaqeysa dhalinyarada runtii ku mashquulsan inay beero la qabsan kara isbeddelka cimilada oo tayo leh oo casri ah dhalinyaro badan oo ku mashquulsan ayaanu u hambalyaynaynaa aanu u sheegaynaa inaanu garab taagannahay haddaanu nahay wasaaradda beeraha hambalyo ayay noo tahay maanta wax weyn ayay noo tahay runtii laakiin waxaanu u sheegaynaa beeraleyda Soomaaliyeed inaanu annagu wasaarad ahaan serious ka nahay wax soo saarka dalka kobcinta wax soo saarka iyo taageerada ay mudan yihiin beeraleyda Soomaaliyeed in la gaarsiiyo ayaanu u taagannahay intaa wax ka badan oo badan insha Allah taala iyo wax qabad muuqda iyo xiriir joogto ah oo muuqda iyo talasiin muuqata oo joogto ah ayaanu u samayn doonaa beeraleyda Soomaaliyeed hambalyo sharaf iyo karaamay noo tahay maanta inaanu intaa soo cagaf sidaan sheegay 34 sano markii ugu horeysay aan dalka keenno ku garab istaagi doono beeraleyda Soomaaliyeed iyo iskaashatooyinka beeraha ee waaweyn sidaanu qorshahayaga waxaa ku jira inaanu dalagyada qaar si gaara culays u saarno si aanu u kordhino wax soo saarka baahida cuntada dalagyada aanu sida gaarka ah annagoo mas'uuliyad naga saaran tahay wax soo saarka dalka oo dhan iyo crop kasta ama midho kasta khudaar kasta oo dalkan laga soo saarayo haddana waxaa target noo ah si gaara target noogu ah 7 dalag oo ay ugu horeyso galleyda iyo haruurka iyo digirta iyo masagada bariiska masago waa soo sheegay marka laga fiiriyo xagga cuntada muhiimka ah xagga khudaarta iyo waxaa noo cash cropska waxa la dhaho waxaa noo targeta sisinta iyo liindhanaanta iyo mooska dhammaan shirkadaha iyo beeraleyda ka shaqaysa dalagyadaas si gaar ah ayaanu u gaarsiinaynaa taageeradayada waa dalagyadoo dhan waan ka shaqayn doonaa laakiin kuwan waxaan ku xoojinaynaa suuqa inay ka buuxsamaan suuqa in galley ka buuxsato suuqa in bariis ka buuxsamo suuqa inuu ka buuxsamo haruudh suuqa inuu ka buuxsamo digir ay ka buuxsanto dhinaca kale inuu moos ka buuxsamo oo aan dhoofino sisin ay ka buuxsanto aan dhoofino iyo liindhanaan sida haddaba socota inaan dhoofino kuwaasaa culays gaara aan saari doonaa insha allahu tacaala
agaasimaygu maxoogu jecel yahay maxoogana waa lagu taray marka waxaan kaloo hambalya leeyahay toddobaadkii dhoweyd khamiistii golaha wasiirada waxaanu horgeynay warbixin la xidhiidha beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed ayaanu golaha wasiirada horgeynay oo ay ku jirto ajadayaashii ku jira ay kamid ahayd in fertilizerka loo fasaxo beeraleyda guddi baa loo saaray anigu aan madax ka ahay waxaan idin sheegayaa wiiga soo socda dareenka ra'iisul wasaaraha dareenka golaha wasiirada anoo ku hadlaya beeraleyda Soomaaliyeed waxaa loo fasaxi doonaa fertilizerka ayaa loo fasaxi doonaa insha Allah taala sidoo kale waxaanu geynay golaha wasiirada in dalaga ka soo baxa dalka qadaraasyada dawladdu bixisay cunto ku bixiso ciidamadu inay cunaan ay ku bixiso inay qadaraasyada lagu qabto qadaraasleyda lagu khasbo halka hay'adda ka dhiiri gelinayaan bariis beeraley dawlad kale ay soo saartay inay gataan dalaga dalka inay ciidamada u gadaan galeyda kuwan hadda sheegay iyo haruurka iyo bariiska jawhar ya ay u gadaan oo aan laga ogolaan doonin mar dhow inay bariis nin kale beeray dhiiri geliyaan oo yiraahdaan bariis badan soo saar anigana bariiskayga dalkayga ma gadanayo si uu u baaboo aan waxba loo soo saarin ganacsatada caloosha shaqaystayaasha nagu soo daabula qashinka bannaanka waa baabii doontaan waa la joojin doonaa shaqo kale raadsada hadda taga NTB-ga meesha dawladda iyo ganacsatadu heshiisyada ku gelayaan ma socon doono bal anigu berigii hore aan yaraa